دوني أنا ويديو وزير هوري عبد الفارح سعيد جحا سياسيين أتكلم تهاي أسبوعي دوا واحد سو صارتين أركتك دوم فدرالك أو هم معمول أولي هذا كونفدريشن سيدا شمس أي شيء جيسي نظام كان كونفدريشن كوحو أود زيادة أصينا يا معمول قبل هذا مرنك أول تاجنانا وحو هادتك قار وحي كدوديين معمول قبل هذا بنظام كان فدرالك لفتركيس أود زيادة ويصل هاي بوبسية يوم نظام كان عصوبة إذنكو آد سو بربوز غريسنا أما آد سو بندكتين كوفدرالكو ما كده قنقلي كرا سوماليا ما هاتسكو دورتين وسؤال wanaagsan weeye waxaan rabaa intaan ka jawaabin su'aasha inaan dul maro horta arintan federaalka ah sidee ku yimi federaalku wuxuu ku yimi baahi dawlad dhexe ayaa jirtay iyadoo ruuxeedu khasbatay in dawlad dhexe noqoto oo dawladda inqilaab ku qabsatay awoodda ilaa iyo hadda 40 sano muddo laga joogana 77 dalka Soomaaliya hoos buu sii socday 30 sano muddo ay ku dhowdahay oo laga soo bilaabo 19 keena dawladdaasi ba saxad ay ka baxday muddo ku dhow 19 sano Soomaaliya cusub baan sameeynay oo laga soo bilaabo carta 15 sano dawlad federaal oo imbigaad ka soo bilaabata ayaan ka shaqeynay waxay ku timi marka xilli wixii jiray ay burbureen oo ahay dawladii dhexe hadday sida tanqaab fiican hadduu ahaan lahaa ma burbureen dabadeedna ay samaysatay xaqiiqo ah 10 sano iyadoo aan la wada hadlin carta la isugu yimi oo dib Soomaalidu ay dooda u bilowday 14 sano ka bacdina ay noqotay waxa kaliya oo la isugu soo dhawaan karaa inay noqoto sheekada federaalka ah waxaan wali ku jiraa marka ma joogno xilli dawlad Soomaaliyeed ee heshiis lagu yahay ay dhaqan gashay waxaan joognaa xilli aan ka sheekaysanayno sidii aan u samayn lahayn dawlad Soomaaliyeed oo waari karta waxaan joognaa xilli dadka Soomaaliyeed wixii kala gaaray aysan ka heshiin aysan isu niyad samayn aysan shuruuc taabagal ah oo dastuur ah aysan meel dhigan baan ku jiraa nasiib darradu waxa weeye marka 19 sano wixii laga shaqeynayay oo 15 sano ay ka mid federaal oo laga shaqeynayay waxa timi sheeka in cidi iman karto maalin maalmaha kamid ah oo sheekadiiba sidii hadii hore la ay sheeka cusub bilaabi karto sida hadda ka socota barnaamijkan burburinta nidaamka federaalka ah oo hadii la eego dawladda ugu dambeysay oo Xasan Sheekh oo kale iyadoo ruuxeedu waxay ku timi federaalku samaysankiisu markii doodii Kismaayo ama Jubbaland ay hirgashay oo tareenkaas uu noqday mid dhaqaaqay baa waxa timi in maamuladii kale si degdeg lagu sameeyo oo maamuladani markii hore si organic ah oo ay dadku leeyihiin oo hadda Puntland oo kale 8 sano ayay soo socotay oo la yarado 8 sano sugitaanki oo 19 ilaa 98 oo doodan la soo lafaguray Soomaaliland saas oo kale ku samaysantay laakiin waxay ahaayeen isteedidana kuwa si degdeg lagu sameeyay waana cilada keentay in hadda si fudud haddana in lagu burburiyo sababta anagu marka aan u soo propose gareynay xilligan in qaabkii federaalka ah laga guro dood kala miiska aan soo saaro waxa noo muuqata in nidaamkii federaalka ah ee 15 sano aan dhisaynay oo san ahayn mid ba lagu dhex badbaadi karo oo wali uu nugul yahay maadaama aan waxaan cuskanaynaa hadda ka sadaa fiirisay qodobka dastuurka 120 ee dastuurka federaalka ah wuxuu sheegayaa dhismaha golaha xukuumadda iyo kan baarlamaanka inay u taalo dastuurka maamul goboleedka waa awood dastuuriya oo dawlad goboleed in dawlad goboleedu ay dhisato iyadoo maamulkeeda hadda fiirsatid marka baaqi ka soo baxay shirkii hadda dib u heshiisiinta oo galmudug qodobkiisa 7 wuxuu sheegayaa in dawladda federaalka ah ay soo saarayso hanaankii iyo qaabkii iyo shuruudihii lagu dhisi lahaa golaha garsoorka golaha baarlamaanka madaxweyne ku xigeenka ma oran karo marka dawladda halka ka dhalata waa dawlad goboleed runtii hadii si sharciyan loo eegayo waayo ma aha wax dadkii lahaa iyo sharciga ilaahay ku samaysteen waxay u egtahay wax wasaarad la sameeyo taas ayaa waxay keenaysaa marka systemkii inuusan ahayn system
system nugul weeye ama aan loo shilcsanayn annaga marka waxaan konfederaalka waxaan meesha usoo dhigaynaa maadaama doodaas ay saas tahay dowladda federaalka oo noocaasa waxaa loo baahan yahay awoodaha maanta haysta kuwa ka yar in loo delegate gareeyo wax kalena maaha konfederaalka waxa weeye anuu hadda ma leeyihiin gobol walba hal aqoonsado caalan ha qaato adduunka ha tago laakiin waxaan propose garaynaynaa qaabka imaaraadka oo kale imaaraadku wuxuu kaga duwan yahay dowladaha kale lama aqoonsana imaarad la aqoonsan yahay adduunka laga aqoonsan yahay ma jirto oo sovereignty wali boodiga guud oo United Arab Emirates ka ayaa haya laakiin isteediyada ama imaaraadka ayaa waxay ka kooban yihiin in awood shar garayaan marka waxaan soo jeedinaynaa in awoodda dawladda federaalka lagu aamini karaa ama la siin karaa inay noqoto mid kaliya ee isteediyadu ay u delegate gareeyaan oo ay taasiyaan dooda ayaan miiska dhigaynaa waxaana keenaya dalku maanta laba wax ay u dhaxeeya laba xaaladood buu ku jiraa inuu kala tago oo kala go'o oo sida case-ka Soomaaliland uu tago oo kale oo halka lagu kala yaaco iyo intii burburtay 30 sano ka hor oo sansaankeedii mudug hadda uu muuqdo ay noqotay wax kale oo miiska saaran labadaasna midkoodna dawladda Soomaaliyeed ma keenayo systemkii federaalku aan islaam ku badbaadaysaana saasuu isagiina u nugul yahay oo qolaantay maalin soo toosto waxaan moodaa inay cashadii dhinac kale u rogayaan marka waxaan leenahay hal talaabo kale hal la qaado awoodda isteediyada hal la xoojiyo waxa dawladda dhexe la siinayo hal loo delegate gareeyo oo hal la siiyo taasna awooddan inta kale laga hayo taa ayaan u soo propose gareynaa waxaan qabaa see ku suurtagal tahay baa tiri doodaan argu way adkayd waxay ku suurtagal tahay dalku inuu kala galano option maaha oo kala tago sida Soomaaliland waa inuu sii deyno calanka buluuga inuu sii deyno inaynu dawlad dhexe oo shalay ina ka duuntay mid u eeg dhisana suurtagal maaha anuu marka waxaan ku doodayaa sida kaliya ee dalkaanba lagu hayn karaa waxa weeye waa confederation ka weey